ururka haweenka Alhayaad Women's ee fadhigiisu yahay dalka Ingiriiska ayaa deeq kala duwan iskugu jirta agab kala duwan soo gaarsiisay isbitaalka guud ee magaalada Gabiley deeqdaas oo lagu talagalay hooyada iyo dhallaanka ee isbitaalka guud ee magaaladaasi Gabiley ayaa qoreynba waxa ka gundoontay agaasimaha guud ee isbitaalkaasi deeqo Cumar Xaaji Siciid oo ku soo dhaweysay qurbajoogka Alhayaad Women's oo markii saddexaad deeq soo gaarsiisa isbitaalka guud ee magaalada Gabiley agaasimaha guud ee isbitaalka Gabiley Dr. Deeqo Cumar Xaaji Siciid oo qoreynba halkaasi aad loo kooban ka jeedisay ayaa maanaq balaaran soo jeedisay ururkani waxay inoo sidaan maxay heedeen dhaf loo xiri doono hadii la helo ciyaalada ku dhasha meteen warka umusha maxay heetay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa jaaliyada Cardiff iyo dadkii waxa la dad alla intii ka soo qayb qaadatay maxay heetay soo iyo kana gacan ku soo siisay soo ururinta iyo maxay heetay isku agaasimaha ururka Alhayaad Women's ee fadhigiisu yahay Cardiff UK Foosiye Maxamuud Cabdi oo hadalkooban halkaasi sheegtay ayaa guud ahaanba sheegtay in deeqdan uu ugu tala galeen isbitaalka guud ee magaalada Gabiley isla maantana ay si rasmi ah ugu wareejinayaan dharkaas aad aragtaan ee biibiyada ay raaxinayaan markay soo gashaan dharkaas waa dhar cusub oo ay ugu soo tala galeen maxaan ku raadada dadka maaha jaaliyada laakiin dadka degan dalkaas Ingiriiska u dhashay ee dumarka ah waliba ee dadka waaweyn markay retirean shaqooyin ka fadhiistaan ay tolaan oo inta gareeyaan markaas dib charity u bixiyaan marka waxaan u xiriir la leenahay urur kale oo isaguna Ingiriiska base garaysan oo xubno ka socda horaalka u yimaadeen la yiraahdo life of African mothers way Angela Gorman ay hogaamiye ka tahay marka darkaasi iyaga u xiriir agaasimaha bisha Cas Mustafa Nuur Xisi iyo mas'uuliyiin kale oo halkaasi ka hadashay ayaa iyaguna sidoo kale soo dhaweeyay ururka Alhayaad oo sheegay in guud ahaanba deeqa kala duwan soo gaarsiiyay isbitaalka guud ee magaalada Gabiley